daawade ku soo dhawow channelkeena barashada architectural design-ka fadlan subscribe saar si aad u hesho casharada halgala furan calaamada gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela bismillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da insha Allah casharadii ugu dambeeyay aan dhamaystirnay dawaqii ahaa insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa waxyaalo yar yar oo badanaa soo naqnaqdo sida hadda badanaa dadka sida projectiga marka dhameeyay kale sidee PDF loogu dhigaa sidaas oo kale hadana animation ko kale somehow marar qaarkii iyadana adoo project wada inay cilad kugu imaado xagga iyo inay kaaga imaado inuu projectiga ka istaago somehow inuu isciladeeyo kala AutoCAD-ka okay sidee ciladaha qaarkii loogu bixiyo okay ko waxaan ka bilaabi doonaa sidee PDF loogu dhigaa marka PDF rabtidna project ka dhigtid waxa leedahay waxa leedahay adigoo meel ban joogo oo aadan wax ku doorneen waxa leedahay control P waxa leedahay control yo P waa B for pen si fiican loo fahmo kadib meeshan inaan ay ku qoran tahay waxa dooranaysaa DWG to PDF okay marka dooratid sidaas oo kale waraaqada lagaaga dhigi lahaa okay projectiga markasta si oo noqon kara waraaqada tiro badan meeshan ku jira A4 ku jirto A3 ku jirto B ku jirto waxyaalo tiro badan ku jirto okay anaga maanta waxaan rabnaa marka waraaqadeena tan joogayna qaadan okay design-keena habka uu sameeysan yahay doo GGF yahay mid A4 naftarkeeda joog GGF leedahay okay marka waraaqada inta ka dooratid kadib haddana waxa dooranaysaa waraaqadaada ina haddana portrait u dooratid landscape hada GGF-keeda ku dhaafadii joogtahay jooggeeda ku qaad sidaas oo kale inay meeshaan tigtaya laga qaadin tigta dikaaga qaadan tahay tigta saar waa fit into paper-ka inuu fit ku noqdo okay mid kale ku xigta asina waxa waa center-ka inay waraaqadaada ay taalo okay kadib waxa dooranay display fure waxa ka dooranaysaa window meesha ku qoran tahay kadib inta imaana inta markuu ku keeno kadib waxa dooranaysaa inti aad rabtid okay tusaale kale soo dhaweey kadib waxa leeyahay intan ka bilaaba okay intaas aad dooranay salfan soma taas dooranaysaa kadib waxa leedahay okay kadib inteen ku dhigaa ku dhax magacan kugu qorayna maxay okay ayu magaca jeceshahay ka bedeli kartaa okay waxaan ku qoraynaa anaga ground kadibni okay leenahay soo diska joogayal sidaan uu leeyahay kadib wuxuu ku soo bandhigaa wixii uu sameeyay sidaan kuugu muuqana marka okay qofka sidaan uu geynaysa laakiin projectiga AutoCAD-ka failka naftirkiisa ma geynaysid failkaas qaali waaye adiga sameysatay adiga waa inuu ku ekaada selfan soma qofka markaad wax u geynaysid ma fahmi kara xataa laakiin waraaqadana u geynaysa waraaqadana u soo daabacaysa si qurux badan ay tahay si kasta hada u soo dhabaysidna saasoo nadiif biir yahay selfan soma isku ma dardaray xataa okay PDF si loogu dhigo waxaan rajeynaa in si fiican loo fahmo okay kana iska soo xirno okay sidaas oo kale marka aad projectiga sameeysid tusaale oo kale waxaan dhahnay projectigan qayb kasta si gooni u sameeynay okay ana hada ground floor soma second floor is third floor ko kale okay first floor is second floor ko kale si gooni u sameeynaysa foundation gooni u sameeynaysa elevation ka gooni section ka gooni mid kasta gooni aad PDF ugu dhigaysa sidaas oo kale maxaa sameeynaysaa okay somehow ground floor ko kale markay joogtid ama si gooni ah waxaad u qoray detail-ka ama oo ku dhex daraysa okay detail-ka muxuu yahay detail-ka tirado ka batay okay somehow mar kastaba detail-ka nooca loo sameeyo okay tusaale oo kale anaga maanta intaan ku sameysano okay waxa leenahay line oo soo qaad meeshan click noogu dheh inta sidaan u bax 4 mitir oo kale kadibna orthaha toosi oo arbitka dar F8 bisa taabo kartaa okay adigoona meel ka tagay okay sidaan ku yahay asigana waxa nooga dhigtaa 10 xataa ka dhig kadibna inta u soo noqo 4 kadibna inta soo si space
kadibna offset inaad soo qaadatid alignment samey. Okay, waxaan dhahaa tusaale kale laba noo dhaxaysay. Okay, 0.2 oo ka dhig laban dhaw. Okay, laba xataa way badan tahay, waxaa ka dhigtaa hal mar geli 0.5. inta xataa aad u yaraan qoraalka sidiisa saan soo ku fiican yahay. Okay, 0.5 aad u yaraan 1 oo dhigbo. Okay, hal mitir se u wada dhaxayso. Okay, intaan ba ku filan. Text soo qaadanaysa, kadib waxaad dooranaysaa inta rabtid in lagu qoro. Tusaale oo kale meesha rabtid aad joogtid aad wax ku sameynaysid. Okay, intii aad dooranay kadibna qoraalka company-ga aad joogtid. Tusaale oo kale aniga hadda channel-keena waxaan leenahay som architecture alena oo la jeedo Somali architectural silvan Soma. Okay, magacaas aan u bixinay kadib control ayaan leenahay enter. waa size-ka oo yeelanay asiga waxaan ugu dhigtaa leedahay 0.4. okay, 0.4 oo badan tahay waxaan ugu dhigtaa 0.3 ama 0.35. okay, kor oo ku dhagay waxaan sameynay soo fajinaysa saasoo kale horta iska diminaysa wax yar soo centerka ugu hagaaga. okay, kaas aad dooratay asale copy-naysa. okay, horta soo ku daaran soo straight kugu noqdo. okay, magaca qofka sameeyay project-iga magaciisa. okay, mid ka soo bedeli doona. okay, sidaas oo kale project-iga magaciisa waa sameeyna Soma. okay, site-ka wax laga sameeyay. okay, kadib intuu qaybsamay doontaa. okay, meeshaan joojino. koo waxaan dhahnay qofka wax sameeyay. company-ga maxaa ku xigo qofka wax sameeyay. tusaale aniga waxaa la yiraahdaa engineer Muhammad Ali silvan Soma. engineer Muhammad Ali. okay, waxaan dhahnay waxaan ku xijinaynaa project-iga magaciisa. tusaale kale project-igeena anaga maxaa waaye G+3. okay, waxaan sameyn doonaa G+2. okay, macnaha ground floor plus 1 laba lagu daray. okay, sidaas oo kale site-ka wax laga sameeyo ama company naftirkiisa inuu yahay ground-iga inuu yahay. okay, kadib offset kala soo qaado waxaa leedahay 1. okay, mid kalena ku dar kadib intaas noo jooji. trim dheh space dheh labadan ba iska bixi. kadib labadan waxaan ugu qortaa kan soo koobiye. kan iyo combo. okay, kan tusaale kale waxaan noo dhahdaa waxaan isticmaal rabnaa unit-kan isticmaal. okay, s waxaan dhihi kartaa s I unit meter silvan Soma. kana ku soo haray kan taariikhda wax la sameeyay. tusaale oo kale aan dhahnaba waxaan sameynay
taariikhda waxay noo dhahdaa tusaale kale taariikhda abadan 2020 slash bisha koowaad slash soddonkeeda okay waa waqtiga la sameeyay okay inta markuu noo yahay kadib hadda pdf hada ka dhigtay detailkaas sidaas u quraaca server soma detailka markastaba si waa okay somehow markaad material oo dhigtid oo kale marka electric oo kale isticmaali sidoo kale fiilooyinkii oo kale somehow markastana sii badata okay company-ga position-ka ku yaalo site-ka position-kiisa waxyaalo badan ayaa lagu dardari karaa okay anaga intaas ay noogu filan server soma sida detailka loo qoro sidoo kalena pdf-na loogu dhigo safiicana intaas u faham okay kan ba pdf aan ka dhigna mar labaad control b aan leenahay nankaas waxaan dooranay dwg into pdf waraaqada waxaan dooranaynaa a4 aan dooranaynaa sidaas oo kale portrait aan ka dhigaynaa sidaas oo kalena kan sidaas noo ahaado kan centerkaan geysanaynaa sidaas oo kale window inaan doorano intaan u baahanahay ayaan saaranaynaa kadibna waxaan leenahay okay magacna uu qor waxaan leenahay waxaan ugu qortaa bis g bis noogu qor okay inta noo dheh marka okay waxaan tusaa marka okay waa kana marka qofka sidaas oo markii warbixinta sidaas oo hayna meesha lagu sameeyay qofka sameeyay projectiga okay kan naftirkiisa qaybto ka yahay unitka taariikhda okay company-ga sawiro dowlaha waxa soo dhan detailka sidaas laga qoraa pdf-na sidaas ayaa loogu diyaar xaraajina in si fiican loo fahmay casharkeena intaas ku geeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.